waayahay waxaad u suura gashay warbaahinta Dalmar Media in ay waraysi la yeelato Ilyas Aadan oo ah aabaha dhalay Caasho Ilyas Aadan oo maalmo ka hor lagu dilay laguna kufsaday magaalada Gaalkacyo isla markaana arrinta Caasho tacadiga loo geystay uu meelo badan oo adduunka kamid ah uu gaaray oo ay dad badan ka caroodeen gaar ahaan dadka reer Puntland ay dareenkooda cara ku muujiyeen kiiska sida ay ugu xun yihiin Ilyas waxaan ugu Dalmar Media ay maqashooneed intii maalmahan ahaydba kiiska markuu dhacay in aad jidhay dalka Ethiopia oo aadan suuragal ahayn Gaalkacyo inaad joogin balse hadda iminka aad timi bal waxaad warbixin guud la wadaagtaa dadka ku maqlaya xagee wax marayaan iyo dareenka guud ee qoyska anigu horta jisiyan ku maqnaa jisiyan ku arkay tiibiyada kaga arkay telefoon badan oo ay igu yimaadeen 3 bari baan soo socday laakiin soo galay halkii saaciya meelahaas ka ahayd oo saaka saakan Gaalkacyo soo galay xoogaa baan nastay sifaan oo taasheynaya oo Puntland ka socda waan aragnay waana qaabilnay arrintiina hadda baariseedii ku socotaa dad badanna waa la hayaa waayahay qoyska ma laga talageliyay baaristan iyo howlaha dawladda Puntland ay ku howlan tahay ee la xiriira kiiska Caasho dadka qoyskina sida adiga oo kale wax talagelina ma la idinka siiyo waana laga siiyo waa loo yimid aniga maqnaada talagelinta iyaga weli hawshan sii wadayaan laga talageliyay arrintiina way socotaa weli baaristii waa socotaa waa la heli doonaa iska sugaanaya waayahay marka tuhmadan la hayo wax cad ma jiraan tuhmadan hadda dad badan baa la hayaa marka kiiska la baarayo wixii la kulmay wixii mataqaanaa yimid markii la aasayay meesha la soo dhigay kiis wax ka yimid kirishadii wixii oo dhan waa la wadaa waayahay waxaa jira walwal la xiriira in arrintu haddii ay banaanka timaado ama ay soo baxdo in odayaal ay ka garamaan oo qaabkii xerbeegtiga Soomaaliga arrintan lagu wajaho marka qoys ahaan maadaama aad tahay aabihii dhalay Allah u naxariis Caasho yar Ilyas arrintaasi idinka aduna maadaama aad tahay aabihii dhalay arrintaasi adiga iyo qoyska kale ee familka Caasho in odayaal hadhow ay kiiska kala garamaan مسجرا واحد لوضي ولا هذا ما waxaan cid aan kala hadlaynaa ma jiro dadka koofiyadaha iyo dadka dilaalinta cid aan kala hadlaynaa ma jiro shariicada islaamka ku kalsoonahay wixii mataqaanaa hadii la helo shariicada islaamka in la horgeeyo waa ku kalsoonahay ummadda Soomaaliyeed u badbaadaan gabdhahooda iyo dadkooda Puntland ay kaga baabaaday ilaa Somaliland ilaa meel walba kiiskan ma arrintan oo kale Soomaali uguma horeyn Caasho lagu sameeyay dad hablo badan oo Soomaaliyeed baa lagu sameeyay waa maqashoon tahay sidaan jeclahay maadaama aad tahay qof Soomaaliya oo ku nool magaalada Gaalkacyo arrintan maxay kula tahay kiiska Caasho haddii sida aad sheegtay dhinaca shariicada aad u baldhigtaan dawo waa u noqon karaa kiiska haddii aanu baldhigno shariicada oo aan cidda kama hadlaysaa inaad gabadhaadii وصار له قلي ودلني أبيه كتاب كبيرة هيستوى يمكن جرنا هي الدين اللي بيشيله وذكر شرع هذا اللي بيشيله واللي هو بالبعض يعني من اللي قالها البعض وأنا أقول هاي الدين اللي بيشيله إلهي ما عبرنا حتى غاربة رجع سكبري كره marka aad maqashay arrintan maadaama aad ka maqnayd Puntland bal ka warad sidaas kugu soo gaaro warka xogta la xiriirta kiiska Caasho wallahi markii aan xogta subaxnimaan maqlay iyadana waa ka daawaday telefoonana waa iga soo horeeyeen aad baan wax maaday aad baan wax maaday sida gabadha loo garay laakiin ilaahay waa codsaday intuu ayagu halahaayeen in shariicada islaamka kula dhaqmo dadkaas waan ku gaaray haddii la helo ma jiraan qorshe kale cid wadata ama dawladda ha ahaato ama beesha aad ka tirsantaa ha ahaato ama cid kale ha ahaatee ma jirta cid ka duwan qorshahaaga dawladda go-aankeeda wuxuu Puntland haddii dadkaas leeyahay in shariicada islaamka lagu fiinayo laakiin xagga dadkan kale aad sheegay sidoo mataqaanaa diyaalayaasha iyo koofiyadayaasha ummadda Soomaaliyeed baxday cid aan kaa hadlayaa xagga iyaga qaraabada haddii ma jiraan
شريعة الإسلام وقشاش cid ku timi oo dadka la hadashay ma jira arrintan go'aan kale mid ka duwan إنه يعني ضد تأثير هي ما بالمراية عدي يقول ما كنت أنا شفته كمان يقول حتى أنت يهدوني aad baa umahadsan tahay Ilyas aadan oo ah aabaha dhalay caasho yar aad baa umahadsan tahay Ilyas طيب